One. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد walaalyaal mar kale waxaad kusoo dhawaataan casharkeenii nutritionka iyo dietka ama cuntada iyo nafaqada maanta waxaan rabaa in aan idinla wadaago cashar xaqiiqdii aad iyo aad muhiimka u ah casharkaas waxa uu ka sheekeynayaa ama aad ku baran doontaa sida jirkaaga cadowga gudaha uga yimaada iyo kan banaanka uga yimaadaba aad uga hortagi kartid waxaan rabaa marka ugu horeysa inaad ogaatid cinwaanka casharkeena maanta waxa waaye ka ilaali jirkaaga labadan cadow ayaad ka ilaalin doontaa jirkaaga maxay yihiin labadaas cadow waan sharxi doonaa hadduu alla idmo cadowga koowaad waxa uu kaga yimaadaa jirka gudaha ayuu uga yimaadaa jirka gudihiisa ayuu ku nool yahay muxuu yahay cadowgaas magaciisa maxaa la yiraahdaa sidee looga hortagi karaa maxaa lagu daaweeyaa ayaan jeclaa inaan la wadaago marka hore cadowgaas magaciisa waxaa la yiraahdaa free radicals xagee ayuu ka yimaadaa free radicals wuxuu ka yimaadaa cuntada aad cuntid wasaqda ku jirta cunto walba maanta adduunka waxaan ku noolnahay adduun wax walba lasoo bacrimiyey wax walba chemical process lagu soo sameeyey marka cuntada ayuu ka yimaadaa number 1 number 2 wuxuu ka yimaadaa air pollution ama hawada aan neefsano hawada wadamadan aan ku noolnahay oo kale iyo waxaad arkaysaa warshado badan inay ku yaalaan qofka markuu soconayo waxyaalo badan baa marka hawadii ku jira marka hawadaas aan neefsanaysid waxaa imaan doona free radicals wax la yiraahdo ama wasaq badan ayaad neefsanaysaa marka halkaasna way ka yimaadaan waxaa kale oo ka yimaadaan cabitaanka aad cabaysid sida waxa waaye cabitaanada qasan oo kale aad cabaysid ama sida shaaha oo kale aad cabaysid ama biyaha cad xataa waxaa ku jira wasaq fara badan ayaa ku jirta marka free radicals halkaas ay ka yimaadaan soo kale waxay ka yimaadaan gacmahaaga waxaad arkaysaa maanta oo dhan meelaha ku tataabanaysaa maanta oo dhan qof baad salaamaysaa maanta oo dhan waxaa laga yaabaa shaqo inaad ku qabanaysid marka waxaa ku soo raacaya wasaq badan ayaa ku soo raacaysa wasaqdaas marka waxa waaye sun ayaa laga yaabaa in ay ku jirto suntaas jirkaaga gudihiisa wax badan ayay u geysan kartaa marka free radicals marka gudaha jirkaaga uu ka yimaado maxay ku sameeyaan waxyeelaysiiyaan ama ay dhaawacaan cellskaaga unugyada jirkaaga ayay dhaawacaan unugyada jirkaaga sida u samaysan yihiin waxa weeye way isku aadan yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa isku aadiyey way isku dhadhegan yihiin marka waxay sameeyaan way kala googooyaan ama waxaa arkaysaa hal unug oo gooni u taagan ayaa waxay raadinaysaa unugyo kale inay wax gaarsiiso marka free radicals ayaa la yiraahdaa cadowgaas jirka gudihiisa ka imaanaya loo baahan yahay inaad ka hortagtid cadowga labaad waxa uu weeraraa jirka banaankiisa waxaad arkaysaa jirkaaga inuu qaldan yahay waxaad arkaysaa jirkaaga inuu mataqaana isku duuduuban yahay waxaad arkaysaa jirkaaga inuu mataqaana nooc kale uu yahay marka cadowgaas waa toxins ayaa la yiraahdaa sun caadi waaye suntaasna waxay ka imaataa meelihii free radicals ee ka imaanaysay oo kale marka laakiin free radicalska gudaha ayay usoo gudubtaa kan banaanka kaliya ayay ku eg tahay foods cuntada ayay ka imaataa wasaqdan ama suntan cuntada ayay ka imaataa waxay kaloo ka imaataa air pollutionka hawada aan neefsanayno sababta hawadii waxa waaye sun badan ayaa lagu sii daayay waxay kaloo ka imaataa cabitaanada aan soo sheegnay waxay kaloo ka imaataa mataqaana wasaqdan ama suntatan gacmahaaga sida aan soo sheegnay gacmaha dadka aad ku salaamaysid ama meelo kale aad ku taabanaysid sometimes dadka qaarkood waxa waaye gacantii baad afka meel kale carabka ku taabanaysaa waxyaalahaas oo dhan suntan ayay ka imaataa marka maxay ku samaysaa jirkaaga ayay dhaawacdaa suntan kore waxay u geysataa jirkaaga inuu jacdado waxay u geysataa jirkaaga inuu nafaqada ka dhamaado waxay u geysataa jirkaaga ma garanaysaa inuu nooc kale uu noqdo waxyaalahaas oo kale jirkii oo ku xanuunayaad arkaysaa waxaa arkaysaa jirkii oo dildilaacsamay baad arkaysaa waxyaalahan oo kale dhan waxa weeye sunta iyo wasaqda iyo jirka mataqaana soo jiidanayo ayaa keenta marka waan kala garanay waan fahamnay cadowga jirka gudaha ka soo weerara iyo cadowga jirka banaanka ka soo weerara halka muxuu yahay marka halkaan rabaa inaad la wadaago halka waxa waaye jirkaaga wuxuu leeyahay wax la yiraahdo antioxidants difaacaas hadduu kaa jilco waa kuu dhammaatay lagu soo weerarayaa weerarkaaga ama difaacaygi waa daciifay waana kuu dhammaatay halka muxuu yahay marka halka waxa weeye waxaan jeclahay laba hal in aan idin siiyo halkood waxa waaye antioxidants waa difaaca jirka sidaan soo sheegnay uu u baahan yahay difaacaas wuxuu ka yimaadaa
cuntada sida mataqaana qudaarta cagaaran oo kale green vegetables oo kale ayuu ka yimaadaa soo kale wuxuu ka yimaadaa fruitska ama waxa waaye cuntada sida liinta oo kale iyo ayay ka yimaadaan waxyaalaha faraha badan loo baahan qofka inuu cuno qaraha oo kale ayuu ka yimaadaa antioxidants oo difaac ilaah subxaanahu wa tacaala ugu talagalay jirkaaga inuu difaaco waxay ka liinta balbeelmada oo kale ayay ka yimaadaan fruitska nooc walba oo aad heli kartid waxaa ku jira waxyaalaha ilaahay ugu talagalay jirkaaga inay difaacaan marka sidoo kale waxaa waaye cuntada laga baahan inaa cuntid waa cuntada asalka ah naturalka original foodska asalka ah iyo cuntada dabiiciga ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dhulka ka soo saaray marka cunto walba cuntada ay ka asalsan tahay cunto walba cuntada ay ka dabiicisan tahay cuntadaas waa cuntadaad u baahan tahay inaad cuntid iska yaree cuntooyinka chemically processka ah cuntooyinka dabka wax badan ku raagay cuntooyinka waxa waaye lagu soo sameeyey isha refinedka laga dhigay ama lasoo bedelay asalkooda iska ilaali qaybta labaad oo xalka u ah in aad ka hortagtid labadan cadow waxa waaye jirkaaga inaad nadiifin ku samaysid see jirkaaga nadiifin ugu samayn kartaa waxaad ugu samayn kartaa adigoo waxyaalahan soo socda mid ka mid ah sameeya ama kulligood sameeya kow waxaad badsataa shaaha la yiraahdo green tea-ga badso sonkor ha ku darin waa qaraar weeye sidiisa uu jirkaaga uu ilaalinayaa cadowgaas gudaha iyo ka banaanka ayuu ka difaacayaa biyaha badso caadiga ah biyaha warmka ama mataqaana qandaca cab oo badso sidoo kale waxa waaye waxa isku darsataa biyo qandac ah iyo zanjabiil isku darso cabaar u dhaaf kadib cab waxay awood u leeyihiin wasaqda jirkaaga ku jirtay gudaha banaanka inay soo saaraan banaanka ay soo dhigaan sidoo kale waxa waaye cucumberka ama qajaarka waxa la yiraahdo iyo biyaha isku darso cabaar u dhaaf cab waxay awood u leeyihiin waxa waaye wasaqda gudaha ku jirtay tan banaanka inay nadiifiyaan jirkaaga ay ka nadiifiyaan kan kale waxa weeye liin dhanaanta iyo biyo oo kale isku darso haddana cab subaxii cab qadadii cab cashadii cab waxaad arkaysaa wax badan jirkaaga in uu xagga shaqada uu soo fiicnaanayo xagga waxtarka uu soo fiicnaanayo wax badan indhahaagii iyo aragtidoodii iyo gacmo taqaana shaqadaadii iyo tamartaadii iyo energygaaga wax badan isbedelayaan marka labadan xal waa laba xal oo si degdeg ah u samayn kartid si fudud aad u samayn kartid cadowgan jirkaaga maalin walba soo weerarana aad ka hortegi kartid marka waxaan jeclahay casharkeena maanta in faa'iido weyn ay ku jirto aad ka barateen insha Allah ta'ala casharka ku xiga intaas ka arki doono waxaan kaga tagayaa sidaas iyo wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh cajiladan dadka kale la wadaaga hadduu Allah awood u leeyahay wassalaamu calaykum markale